wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan maxamed cismaan sayruuq oo maanta shir jiraad ku qabta magaalada Cadaado ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka uu ka hayo wasaaradda qorsheynta galmudug. cabdiraxmaan maxamed cismaan sayruuq ayaa sheegay inay jiraan tabashooyin badan isla markaana ay keentay inuu iska casilo xilka uu ka hayo wasaaradda qorsheynta. aniga magacayga waxa la yiraahdaa injineer cabdiraxmaan maxamed cismaan waxaan ku magac dheerahay sayruuq. ujeedada aan rabo inaan halkaan uga hadlo waa soo gudbin xilka tagis ama istiqaalo xilkii aan u hayay galmudug anigoo ku magaca wasiiru dowlaha qorsheynta markii aan ogaaday mas'uuliyaddii aan u dhaartay inaan ugu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed ee reer galmudug oo ahayd cadaalad iyo horumarin inaysan jirin markii aan ogaaday inaan loo xaqsoorin ummadda reer galmudug markii aan ogaaday nidaamkii la wada dhistay xilka aan ka hayo inuu yahay xil hafariya ah oo xuquuq iyo mas'uuliyad aan u madax bannaanahay aysan jirin dantii ummadda reer galmudugna ay ka baxday meesha mid gaara iyo mid guudba markii si cad nidaamka dowlad goboleedka galmudug dhexdiisa loogu ihaaneeyey beesha aan ka soo jeedo xuquuqdoodina la laalay isla markaasna aan kursiga iyaga ku matalayay annagoo nidaamka dowlad goboleedka galmudug ka filaynay maamul wanaag xaqsoor wadajir iyo isku hayn dhammaan beelaha kala duwan ee ku boobay galmudug waxaan go'aansaday inaanan ka dhex shaqayn karin nidaam dadkiisa si walba ugu xadgudbaya aniguna muddadii aan ka shaqaynayay aanan hal bilna mushaar aanan ka qaadan bal anigu aan ku bixiyey waxaan kuu soo gudbinayaa mudane madaxweyne istiqaaladii aan xilkaas kor ku xusan uga degay isla markaasna aan ku wargelinayaa beesha aan booskaas ama xilkaas ku matalayay inay qof kale ay keensadaan oo ay raalli ka yihiin xilkaasna qaban karaan. maxamed maxamuud owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.